aniga oo ah suldaanka guud ee beesha Sheekhaal Suldaan Maxamed Suldaan Muuse Xaaji Barre Lugaloox waxaan halkan ka soo jeedinayaa dhacdo la yaab leh oo galabta ka dhacday xarunta aan ka deganahay magaalada Dhuusamareeb ee ah caasimadda dowlad goboleedka Galmudug taas oo ay odayaasha dhaqanka ee seexayaasha Galmudug ku xariisnaayeen muddo badan oo anigana aan ka mid ahay galabta waxaa dhacday in ay na soo wargeliyaan guddigii maamul sameynta ee Galmudug oo yiraahdaan guddigii galabta waa inay isugu yimaadaan odayaasha hoolka weyn oo shirka oo ku yaala shirkooda meeshaan deganin markaan isku diyaarinay inaan meesha aan aadnana waxaa dhacday in oday ka mid odayaasha aan aniga dhaqanka u ahay odayga suldaanka aan u ahay in la keenay oo isla markii la sawiray oo isla markii la siiyay maxaa la sheegay warqadii la siiyay muxuu ay sheegeen annagana la siiyay oo kale taasoo ka turjumaysa inuu yahay saxiix asagana waxaan aad iyo aad ula yaabay markaan weydiiyay odayaashii qaarkood kadibna aan u sii gudbay aan weydiiyay maamulkii markaas socday gudoomiyaheedii guddiga farsamada iyo maamul sameynta mudane Cabdinaasir wuxuu si cad igu sheegay inuusan raali ka ahayn in aniga aanan saxiix aan noqon laakiin laga wareejiyay wuxuu waa laga wareejiyay oo waxa ka wareejiyay madaxda qaranka ayaa ka wareejisay oo waliba igu sii tilmaamay ra'iisul wasaaraha waa ka filan way arrintaas iyada ah ra'iisul wasaaraha galabta ayuu baxay amarkaasna galabta ayuu dhiibay waa arrin aad iyo aad aan isku qaban karin haba yaraatee aniga markii waxaan aad ula yaabay ma hore loo socdaa ama dib loo socdaa ra'iisul wasaaraha hadii ay noqotay inuu faraha la soo galo dhaqanka Soomaaliyeed ee suubana oo aniga midalan aniga beeshida ayaa soo dooratay aabahay suldaan ahaa aniga suldaan noqday inta sano aniga wax soo saxiixa qarankan kamid ahay 135 kamid ahay in maanta la yiraahdo saxiixii 135 ku jiray saxiixii Galmudugna ahaa in laga saaro la yiraahdo ninka lagu soo bedelo ayaan daray noqotay inta la eg qofka qof uu damiyana wakiilan kara haduu mar u baahdo laakiin mar hadii isaga uu joogo uu mustaqil ku yahay meeshii waxa waajib in shaqadiisa uu madax banaanaado waxaan marka aad iyo aad uga codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee jecel wanaaga iyo samaha jecel iyo dawladda federaalka iyadaba in aysan ku kadsoobin arrimahan oo kale haba yaraatee wax soconana maaha wax la aqbali karana maaha in suldaankii beesha ay soo dooratay oo suldaankeedii ahaa oo saxiix ahaa inta laga wareejinin ay niman siyaasiyiin wataan oo qaarkood aan dhaninayno oo ognahay oo in badan afka lagu hayay in la keeno oo waliba la keeno waqti ugu dambeeyay last game ugu dambeeyay la keeno daqiiqadii ugu dambeeyay iyadoo anaga nabalo baaqay oo leeyahay soo baxa oo galabta imaada waxa idin bilaabanay shirki waxa la idin bilaabaya seminaarkii in inta la keeno odayga la keeno la yiraahdo waa kan odaygii ee isla maqribkii la yiraahdo odaygan ayaa saxiix adiga saxiix malihid suldaan oo sababtuna ay tahay anaga waxaan ku soconnaa amarkan waxaana soo siiyay ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed mudane Khayre waa arrin aan aad iyo aad ula yaabnay oo ula anfirinay mana ah midaas mid suurtagal noqon karta hadii ay dhacdayna waa mid aan laga aqbali doonin hadaysan dhicin oo loo saariyo ra'iisul wasaaraha ninka u saaray ee askale oo ah gudoomiyaha guddiga maamul sameynta doorashooyinka mudane Cabdinaasir isaga geelle asaasi waadax igu sheegay dowlad goboleedka Galmudug la sameeyay in ay wali sidii ay muujeedaa iyo si ka sii xun ay ku socoto oo ay midda tani ay tahay midii ugu sii darnayd sababtoo ah waxay gacanta la gashay dhaqankii Soomaaliya ee ay qabiilooyinku lahaayeen ayay waxay la gashay gacanta marka waan soo gaabinayaa waxaana cabruuf gareynayay in uu yahay suldaanka guud ee beesha Sheekhaaleed oo dhan saxiixeed inuu asagu yahay uusan ahayn nin kale uusan ka jirin ama had joogto Raas Gambooni ama had joogto Raas Casayr ama had joogto meesha la yiraahdo loo yacdo waxa weeye asaga ayaa Sheekhaal ka mas'uuliyadda suldaanka qabiilkaas asaga u ah suldaanka guud